السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسكونا قد وناكسن دمانتين مال بادونيد جيجتان halkaad naga daawanaysaan waa Salmaan Kulu official maanta video cusub. Welcome back wasanada video waxaan ku sugnahay degmada Abgooy khaasatan Bar Ismaaciil. Waxaan rabaa bulshooyinka ku dhaqan degmada inay su'aalooyin badan ay weydiin maanta. Barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay bulshooyinka ku dhaqan degmada ay su'aalooyin weydiin doonaa nala socdo. qofka ugu horeeyay barnaamijkeena saaxiib qaali ku soo dhawo Salmaan Kulu official. waa ku dhawaad Salmaan Kulu shaqaal ma sha Allah. su'aasha ugu weydiinaa diyaar ah taw maleena. diyaar ah ana ku joogo. Okay waxa ku weydiinaa mataqaanaa hooyada oo gorobe ma guursan lahayd ana hooyadii oo gorobe horta waa guursan lahay hooyadeena teeda waay ana hadii hooyadii gorob naqat ana aroos lahay ana isku xirno hooyadii ana isku xirin hooyadii aabbiya gorob ka dhigmada laakiin ana kale aroos lahay صح ما شاء الله هذا وما صنت هذا وما صنت واي فاهم كان هاي qofka labaad ee barnaamijkeena ay ku sii guda jirnaa saaxiib qaal ku soo dhawo Salmaan Kulu official waa dhaw saaxiib su'aasha ku weydiinaa diyaar ah taw maleena yes waxa ku weydiinaa hooyada oo gorob ma guursan lahayd waxa guursan hooyada gorob adi ya hooyada gorob waxa guursanaa hooyada gorob ma guursan lahayn maya hooyada gorob hadii aad ma guursan lahayn miya maya sabab hooyada anay badashiisa u guursanaa macnaa okay waa ma santa barnaamijkeena ay ku sii guda jirnaa qofka saddexaad iyo barnaamijkeeni saaxiib qaali ku soo dhawo Salmaan Kulu official waan dhaw saaxiib su'aasha ku weydiinaa diyaar ah taw maleena diyaar ah okay say waxa ku weydiinaa hooyada oo gorob ma guursan lahayd adi hooyada oo gorob ah ha bismillah maxaa u guursaday abarta la gorob aan ma gorob okay aad ma astay saaxiib qaali jirna saaxiib qaali soo dhawo barnaamijkeena soo dhawo barnaamijkeena waa dhawaad saaxiib su'aasha ku weydiinaa diyaar ah taw maleena si fiican waxa ku weydiinaa hooyadaada oo gorob ma guursan lahayd saaxiib ma guursan lahayn hooyada gorob hooyada waa bilashaas oo guursanaa hooyadaada oo gorob adi ma guursan lahayd ku dhahay may sabab hooyada ninka la oraadi karaa ma aanisa aroos ah aan mudulka ka soo bax maada taaganta may meeshaas anaa ka soo baxay aywa waa ma santahay barnaamijkeena dhaxbartama ee noo maraya saaxiib qaali ku soo dhawo Salmaan Kulu official waa dhownahay saaxiib su'aasha ku weydiino diyaar ah taw maleena waa sax su'aasha ku weydiinaa waxay tahay habarta oo gorob ma guursan lahayd habartay garoobe waa guursan lahay maxaa dhahay anaaba qabobe horaana u furay haddana waa guursanaa habarta oo gorob adi naag kale ma guursan lahayd habartay oo garoobe waa guursanaa sabab waa naagtay aniga furo way waa ku naqsan karaa may naagta ma ku dhiinaane hooyada ku dhashay oo gorob adi ma guursan lahayd hooyaday waaye maba guursan karee waa meesha ku soo baxay waay okay waa ma santahay habartay waa naagtay waay bilawa saaxiib qaali ku soo dhawo Salmaan Kulu official waa dhaw saaxiib su'aasha ku weydiinaa diyaar ah taw maleena diyaar ah waxa ku weydiinaa hooyada gorob adiga ma guursan lahayd aad iyo aad u guursan lahay sabab hooyada gorob samaan waxa yani aniga waxa way hada guursanayo hooyada oo isag yani taas meesha ay darteed ma isaga dhaafaa Soomaa صح okay hooyada hadii gorobtaada guursan lahayd maano aniga ha okay saaxiib qaali aad ma santahay saaxiib qaali ku soo dhawo YouTube kayga Salmaan Kulu official ما شاء الله اني دوااني سلمان Kulu official saaxiib qaali su'aasha ku weydiinaa diyaar ah taw maleena سيف عن waxa ku weydiinaa hooyadaada gorob adiga ma guursan lahayd ما sabab صوب انا هويدي واي بلشي هويدي نشواب hooyadaada gorob adiga ma guursan lahayd ku dhahay ما قرس لنا بقى هويدي نشواب okay aad ma santahay saaxiib qaali ku soo dhawo Salmaan Kulu official عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته oo ku dhawaada Salmaan Kulu official ما شاء الله su'aasha ku weydiinaa diyaar ah taw maleena diyaar su'aasha ku weydiinaa waxay tahay saaxiib qaali hooyadaada gorob adiga ma guursan lahayd ما saaxiib maan sabab balse way dhashmaano hooyadaada hadii gorob tahay ma guursan lahayd ma guursan lahayn sababtoo ah way ku dhashay way dhashaa aanayada nuug ana waa guursan lahaa ka waran sababtay laaks hooyadii gorob hadday tahay ana waa guursan lahaa qaabkee ku guursanayso hooyadii ayada le gorob ana waa guursan karaa caadi waa qaabkee u guursanayay sheegay hooyadii iyad gorob ma ahno ana caadi waa maxaa kale guursan karaa saas la ii sheegay waa ma santahay saaxiib waa ma santahay barnaamijkeena ayaa guda jirnaa saaxiib qaali ku soo dhawo Salmaan Kulu official waa ku dhawaay saaxiib aad iyo aad waa ku dhawaay mar badan suugayna yani oo aag soo muuqdo YouTube-kaaga ma sha Allah aad waa ma santahay su'aasha ku weydiinaa diyaar ah taw maleena su'aasha ku weydiinaa waxay tahay hooyada gorob ma guursan lahayd hooyada idhisha horta niyo hooyada idhisha u guursanaa aabe yani soo guursada hooyada waaye
صح ma guursan karin ma hooyaday hooyada garoob ay aad ma guursan lahayn ma guursan lahayn sabab inkastoo reerkiisa hooyada naagtaada ay ka saayaan صح laakiin anaga afguya Soomaaliya joogna afguya kasii joognaa mugtay Haye. hooyadin dhasha u kaseenaa صح may waxa ku dhahay hooyada haday garoob tahay aad ma guursan lahayd may soo guursana may okay ma santa qofka ugu dambeeyay barnaamijkeena ee saaxiib qaali ku soo dhaw Salman Kulu official waa ku dhawahay Salman Kulu official su'aasha ku weydiino diyaar ah maleena diyaar ahay saaxiib qaali wuxuu ku weydiinaa hooyadaada oo garoob aad ma guursan lahayd hooyada oo garoob waa guursan lahaa sabab hooyada nafsadeeda oo garoob laakiin qof kasta waa gabadha aan jeclahay waa guursan karaa okay aad ma santa barnaamijkeena su'aalaha halkaas ayuu ku ogyahay waxaan su'aal weydiinayna bulshada ku dhaqan degmada Afgooye su'aashaas qofkii ka jawaabi su'aashaas qofkii jawaabteeda hay waxaan ka rabnaa inuu comment inoo soo qoro team Salman Kulu official aad oo maasantiin sidii qurux badan barnaamijka aad soo daawateen qofkii jawaabteeda hay su'aashan commentiga ha ku soo qoro su'aashan waxay tahay sida hore u soo maqasheen hooyadaada garoob aad ma guursaleed halkaas barnaamijkeena halkaas ayuu ku ogyahay team Salman Kulu waxa idin leeyahay one love video halkaas ku ogyahay waxa idin leeyahay sidaas